cashadan sharafta leh oo aad u samayseen xulka qaranka Soomaaliyeed dhalinyaradii Soomaaliyeed ee masalayay magaca qaranka Soomaaliyeed ku hadlayay waxaan leeyahay hambalyo waa mahadsantihiin dadaalkiina dhalinyaradaas oo ka wada yimid inta badan dibadda iyo qaar gudaha ka yimid oo dadaal dheeri ah muujiyay oo karti iyo isku day wanaagsan sameeyay horena waa loo soconayaa waxaa idin leeyahay hambalyo hal arrinna waa idin sheegayaa markii guusha waxay timaadaa markii la isku dayo isku dayga hal la badiyo guushan way imaanaysaa waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo xulka u mahadceliyo guddiga sportska ee Somali Football Federationka oo hogaaminaya ninka odayga walaalkan saaxiibkeen waxaan leeyahay hambalyo iyo dhammaan tababarayaasha iyo dhammaan inta la socoto iyo dhammaan marka aad u mahadsantihiin waqti dambe noo tahay waa waqti dambe waxaan idin leeyahay oo ku faraxsanahay mar kale iyo mar saddexaadba horay ha loo socdo shacabka Soomaaliyeed ma si guudnaado insha Allah dhamaanteen waa wada guulaysanayna aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. My message to you young guys and my young Somali children from Ward 58. Let these teams, I see, and every one of us, it's human nature to wanting to take photographs of them. But when we take these photographs, let these youngsters be the motivating fact that one day I'd like to see one of you in a Bafana jersey. So guys, it takes a couple of things. I'm a former player, former coach. I played semi-professional football under the old apartheid. We couldn't represent our country, unfortunately. But lots of hard work, dedication, compassion for the game. I believe you've got the compassion. I'm looking at a bunch of Soccerites, that's for sure. You'll carry yourselves, you'll walk like Soccerites. But it's a lot of hard work. Cristiano Ronaldo has gone where he is today is because his hard work. At 37, he's playing the kind of football he's playing is because he's never given up on his training. He's never put in the extra miles. So it's all about the extra miles. So when your coach finishes off with you with a 2-hour session, go back to the gym, go back to the swimming pool or go for a run just to build your strength. And mentally, we got to be strong. You're going to have a lot of hurdles. You know, it is indeed an honor to represent your country in whatever it is indoor. It is one of the greatest honors to be selected to represent your country. How many people in the world can stand up and say that we've been selected to represent our country? Not many of us. So do remember that. It is one of the greatest honors. Other than fighting for the struggle of your country and dying in the fight to liberate your country, the next honor is to be selected to represent your country, be it on the soccer field, the athletic track, or on a cricket field, or a volleyball court. But to wear your national colors is an immense honor. So carry this honor with pride. Make Somalia proud, make whole of Africa proud. dhammaantiin waa idin salaamayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee caawa halkan ku sugan waana idinka mahad celinayaa sida waqtiga gaaban aan idin ogeysiinay aa uga soo qayb gasheen xafladda marka hore waxaan rabaa in aan halkan ku soo dhaweeyo xulka qaranka Soomaaliyeed oo halkan South Africa u yimid inuu ka qayb galo tartanka qaaradaha Afrika ee dhici doona 2023 waxaan kaloo rabaa inaan halkan ku soo dhaweeyo magacyadiina ma soo wadi koobi karayo gudoomiyaha madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed xildhibaanka agaasimihii hore madaxda kale gudoomiyaha xaafadda ganacsatada dhalinyarada dhammaan inta halkan joogto kale oo waliba ay ku jiraan dumarka waxaan rabaa inaan halkan idinku soo dhaweeyo waxaan rabaa inaan u sheego martida halkan noo joogta caawa South Africa qofka bini aadanka jirkiisa waxa uu sareeyay madax meel la taabto jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool South Africa madaxoodu waa Johannesburg marka waxa uu maleynaa reer Johannesburg wax badan baa noogu yimid magaalada siyaasiyiin oo orday xilal madaxweynenimo iyo waxyaabo noocaas oo badan oo aan ka soo aad u soo dhaweynay laakiin caawa waxay iga farxad badan tahay inaan xulka qaranka Soomaaliyeed iyo ciyaartooydoodii aan ku soo dhaweyno magaalada Johannesburg si wanaagsan aan u soo marti gelinay caawana aan si wanaagsan u bixin doona hadii Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo rabaa halkan fariin inaan ka gaarsiiyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo madaxdooda halkan ay fadhido iyo waliba fariintaydu ay gaarto dawladda Soomaaliyeed waxa idin ka codsanaynaa ciyaaraha dambe ah ciyaaraystaan inaad South Africa home ka dhigataan South Africa waxa joogta jaaliyad
tira ahaan aad u badan oo ganacsato ah oo waxay idinku soo kordhiyaan ma ogi waxba aan idinku doonaynin waxaan u maleynayaa shuruudahaas oo dhan ma u maleynayaa waddan kale oo Afrika ah oo buuxin kara wax walba oo u baahan tihiin South Africa diyaar baan idinku nahay hadday garoomo noqon lahayd si walba hadday noqon lahayd taageero hadday noqon lahayd marka xiriirka waxaan caaw kula dardaarmayaa in ay ka dhigtaan ciyaarahooda dambe home si ay ugu ciyaaraan magaalada waxaan u maleynayaa gudoomiyaha iyo madaxdii oo dhan waa fadhidaa codsigaas inaad meel dheer gaarsiisaan waxaan kaloo rabaa inaan idin baro gudoomiyaha meesha waxaa fadhiya xildhibaan Cabdikariin dadka intiisa badan ma yaqaanin waa jaaliyadii ugu horeysay Soomaaliya oo South Africa timaado dadka badankooda waxaan maleynayaa caawa dadka halkan fadhiyo qof ama laba garan kara Cabdikariin inuu jirin laakiin Cabdikariin waa dadkii magaaladan asaasay waa dadkii jaaliyadan asaasay waa dadka ugu horeeyay ee ganacsiga Soomaalida asaasay marka waxaan rabaa xildhibaan Cabdikariin dadka inaad ka garataan waa xildhibaan reer South Africa ah meel kale kama socdo marka waxaa sharaf loo ah maanta caawa xitaa inuu nala joogo xildhibaan South Africa ah oo annaga jaaliyadeena ka tirsan marka dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed aad baa idinku mahad celinaya inkastoo ay naga maqan yihiin dhalinyaradii sportiga ee habeen iyo maalin u taagnaa walaaladood inay soo dhaweeyaan meel walbana ay gaarsiiyaan laakiin way soo socdaan caawa iska soo nasanaayeen banooni soo ciyaareen insha Allah taala way soo socdaan way iman doonaan abaalkoodana ma gudi karno waxaas caawa farxad iyo aniga ayadoo meesha ay ku sugiin saddexdeedii gudoomiye jaaliyada Cabdirasaaq gudoomiye dhalinyarada Talyaani iyo gudoomiye Xaaji Abukar Ganjab in aan aniga caawa iyo ogolaadeen in aan magacooda iyo magaci jaaliyada ku hadlo waxaan rabaa oo kale inaan martida u sheego dadka idin soo dhaweeyay safaaradda Soomaaliyeed inay mid ka tahay shalayna inaa ogeydeen safiirka uu 300 kilomitir ka badan safar u soo galay si uu idin arko oo idin dhiirigeliyo ugu dambeyntii waxaan rabaa in aan la dardaarmo ciyaartooyda qaranka Soomaaliyeed waa dadaasheen aad iyo aad baa u dadaasheen wadamo fog baa ka timaadeen wadaniyad iyo wadan jacayl ayaa u timaadeen waajibkiinana waa gudateen iyadoo xaalad adag ah ku jirtaan haddana waxa aad samayseen wax aad loogu farxaway qof walba oo Soomaali ah oo idin arkana aad buu idinku faraxsan yahay annagana haddaan jaaliyada South Africa nahay aad iyo aad baa idinku faraxsanahay sidaan iyo si ka badan ba inaan idin soo dhaweyno waa jecelnahay weli waxaan idinka codsanay inaad toddobaad kale nala sii joogtaan laakiin waxaad tirahdeen ma joogi karno waxaan jeclaan lahayn inaad dhammaantiin noo soo noqotaan South Africa noogu timaadaan South Africa walaalihiin oo idin jecel baa jooga jaaliyada idin jecel baa joogta mar kasta oo baahataan home South Africa waa homekiina inaad timaadaan oo ku soo dhawaataan marka hore waxaa sharaf ii ah inaan ka soo qayb gala xafladan aad u qurux badan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo walaalaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed oo ugu horeeyo gudoomiyaha Cali Shiine sidoo kale waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo xildhibaankeena reer Koonfur Afrika xildhibaan Cabdilkariim waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo sidoo kale u mahad celiyo walaalkeena ward councilor Masar Riki waxaan rabaa inaan u mahad celiyo sida wanaagsaneed ee sharafta leh رئيس الوزراء هنا قرن كصوماليات إنجنير محمد حسين روبله أو قد كتلفق النقل سو حريري وحربا أنا أماد عليو ولا لها شرفت له رير سود أفريقيا جالية سو أفريقيا جالية سو أفريقيا حفلة قروح بدن عاوي يمد قبلها نقروح بدن دمانتين وحيدكم السلام يا سلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة بعد يمرسد أحد وحن بقادين إياه عيارتو دينا قرنكا nagu matalaya qarankeena Soomaaliya sida wanaagsan ay u dheeleen goorma noogu dambeysay ciyaar 2 iyo 1 ama wax u dhow ay ku dhamaato ma sha Allah waxaan leenahay waxa ii muuqdo future aad bright u ah waan ku bogaadinayaa waxaan leeyahay insha Allah waa bilow waxaan gaari doonaa insha Allah guul dhamaantiin waa idin hambalyeynaya inta markii laga soo gudbo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waxaan ka codsanayaa insha Allah anigu waxaan ka imid magaalo aan halkan ahayn oo 2 hours drive ama 130 kilometers aan ka imid sidaan ugu soo qayb gal xafladan waxaan ka codsanayaa haddii waqti hayaan ciyaartooyda qaar ka mid ama dhammaantoodba in maaragtay casuumada aan u fidino ay noogu yimaadaan magaaladeena oo sidaan camal u soo dhaweyno xafladan u dhigno insha Allah
waqtigu waa kooban yahay xilli dambe waaye waxaa idin leeyahay insha Allah waa mahadsantihiin soo dhawaada marwo iyo mudane marka hore waad salaaman tihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed marwo iyo mudane meesha jooga oo xulka qaranka Soomaaliya soo dhaweynayay dartoodna aan meesha isugu imaanay aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aadna waa idin salaamayaa marka xigta wax weynina meesha ku soo biiriyo maana u imaanin kaliya waxa uu soo istaagay in anigoo ku hadlaaya afka gabdhaha Soomaaliyeed jahliyada Koonfur Afrika khaasatan gabdhaha in wiilashanada ma aragtay aan soo dhawaada idhaahdo xulka qaranka Soomaaliya aad iyo aad baa idin jecelnahay qaran baa tihiin qaran baa wadanahay qaranka nagi baa tihiin waa idigu faanaa waa idin jecelnahay run ahaantii sida maaragtay shucuurtanada maanta ay u kacsan tahay ama dhammaan Soomaali waan ka midaysanahay tan iyo say wallahi danadii ciyaalka nagi yaraa way nala socdaan waxaana keenay sportiska markii la dhaho ama la dhaho maaragtay dhalinta Soomaaliyeed especially xulka qaranka Soomaaliya aad iyo aad buu noogu weyn yahay saasana maaragtay idin soo dhaweyneynaa siyaasi loo soo dhaweeyay sida idinka loo soo dhaweynayo oo aan ugu midaysanahay iyo qof Soomaaliyeed wuxuu doono kaalintu doonaba ku jire oo sida la idin soo dhaweynayo loo soo dhaweeyay run ahaantii madaxweynena ha ahaadee ma jirto idinka anaga dhan baan saameynaysiin waxaad tihiin ciyaartooyga nagi baa tihiin ubixii Soomaaliyeed aan ku faanaynay baa tihiin shanta Soomaaliyeed baan matashaan aad iyo aad baa idin jecelnahay aad iyo aadna waa idin soo dhaweynaynaa Allah idin xiftiyo meel kasta oo joogtaan ba waxaan idin leeyahay guuleysta South Africa waa homekiini labaad ku soo dhawaada cabsi ha muujinina soo dhawaada idin leeyahay waa idin jecelnahay guuleysta ilaahay garabkiina ha galo insha Allah meel kasta oo joogtiinba insha Allah meel kasta oo joogtiinba waa idin garab taaganahay wadan kasta oo la ciyaartiinba insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad ka guuleysataan guul baa rajaynaa insha Allah inagoo maanta dawladeena ayna dawlad caga dhigatay oo si fiican u istaagtay aysan ahayn dawlad waan leenahay dawlad la'aanta ay dhaantaa maanta haysano ayaa maanta heerkan maraynaa oo aan la ciyaaraynaa maanta aad ku ciyaarteen Johannesburg maxaa u maleynaysiin haddaan dawlad yeelano United Kingdomna bari la ciyaartiin baa rajaynaya insha Allah bismillaah baal soo dhawaada idin leeyahay guuleysta xulka qaranka Soomaaliyeed waa idin jecelahay we love you all runtii hadal inta badan waa la dhahay anu xaggan waxaan rabaa uga mahad celiyo dhammaan taageeraha xulka qaranka Soomaaliya meel kastoo adduunka joogaan gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladan Johannesburg runtii intaan anigu shakhsiyan soo arkay wadamo dad idinka fiican weligay ma soo arkay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida qurux badan aad noo soo dhaweyseen halkan waxaan rabaa inaan codsi aniguna ka diro oo ku codsigan waxaan rabaa inaan ka codsado dawladda Soomaaliya inay xulka qaranka garab istaagaan xul dawladdiisu garab taagneen xul maaha runtii marka dawladda Soomaaliya fadlan xulka qaranka ha laga warhayo xaaladiisna ha lala socdo inta la garab istaag karana ha la garab istaago jaaliyadda waddankan ku nool siiba ahaan magaaladan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin thank you very much waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer South Africa run ahaantii soo dhaweynta aad ku wanaagsan ay noo sameeyeen halkan aniga waxaan ka imid Soomaaliya oo aan ka soo raacay guddiga iyo tiimka kale hawsha waday South Africa iguma horeyso laakiin tan waa iga duwan tahay soo dhaweynta ayaan aad uga helay waxa ay muhiimadu tahay oo maantana aniga ruuxayga sharaf ah inaan munaasabada kala qayb galo lagu soo dhaweynayo national team keena oo aad iyo aad runtii aan ugu mahad celinayno dadaalka ay sameeyeen iyo ciyaarta ay soo bandhigeen sida aad la socotaan guusha iyo guul darradu waxay ka mid yihiin ciyaartay ka mid yihiin marka ama guul darra qaadanaysaa ama guusha qaadanaysaa labada mid un baa qaadanaysaa
marka waxaan rabaa inaad ogaataan inta ciyaaraysay iyo inteena kale daawanaysay iyo inta kale ee inaga maqan guusha iyo guuldarradu waxay ka mid yihiin ciyaarta ayay ka mid yihiin waxaan kaloo arkayseen oo markhaati ka ahayseen tiimku inay soo bandhigeen ciyaar u qalanta qaranka Soomaaliya run ahaantii aniga sidaan aaminsanahay waxaan kaloo arkayay oo dareemayay xiriirka iyo ciyaartoyduba inaysan waxba la harin oo dadaal halkii ay gaarsiin kareen inay gaarsiiyeen waxaana qofkii waxaa dareemi kara la socda taariikhda national teamka 30 sano la soo dhaafay qofkii xaaladiisa la socda ayaa dareemi kara oo aan sharaxaad u baahnayn si gaar ah ayaan ula socday aniga intaas xaaladda qaranka ee national teamka waxa ii muuqanayo horumar waan soconaa waan u dhawaanaynaa haddii alla yiraahdo tartankan waa ka harnay laakiin tartanku ma dhammaan wuu soo noqonayaa haddii alla yiraahdo waana ka qayb geli doonaa inagoo ka adag intii hore kana diyaar garow badan garanay meelaha ay dulduleelku ka jirana hadda garanay oo la toosin doona haddii alla yiraahdo waxaan rabaa marka wiilasheena sharafa mudantiin run ahaantii waan idin jecelnahay waan idinku faanaynaa waxaan dalkii ku noqonaynaa inagoo faraxsan oo ku faraxsan maxaa la yiraahdaa dadaalkii aad samayseen sakariya guusha goolka magacaada un baa ku qortay laakiin intaana ka soo shaqaysa ya wuxuu ka soo bilaabanayaa from goalkeeper-ka ilaa sakariya intaas waa la soo shaqeeyey waa la isla leeyahay halkaa xabo ani xitaa wax ku leeyahay markii garoonkan joogo waxaan rabaa xiriirka Soomaaliyeedna horena waa loola hadlay waana fariintiinuna way gaartay waxaan rajaynaynaa taageeradu iyo in garoonka la taga muhiimad weyn ay leedahay waan ka xumahay in iyadoo dadkii Soomaaliyeed is diyaariyeen in garoonkii ay cuslaato in la galo waxaan rajaynaynaa next time inaysan dhicin oo arrintaasna xal loo helo haddii aan la yiraahdo aniga gaar ahaan garoomada yararka markaan ka ciyaarayo maalinka taageerayaal ay buuxaan iyo maalinka taageero uu soo jiro waa ii kala saarneed maalinka taageero uu joogo la ii sacbiyo farsamo aanan garanayna ay ugu soo degi jirtay qof kastoo bini aadanana waa saas waxaan rabnaa marka garoonkii in la buuxiyo haddii aan la yiraahdo oo next time aan la buuxiyo marka aad iyo aad ayaan idinkaga qanacsanahay sidoo kale tababaraha sharafta leh qaranka dib u fiiriya google-ka ka baara recordkiisa dib u fiiriya marka waxaad arkaysaan waxaad sameynaysiin markaas arkaysaan waxa kale ogaanaysaan taariikha samayseen naftiinana waa u samayseen dalkiina waa u samayseen dadkiinana waa u samayseen waana ogaan doontiin maalin maalmaha kamid ah adoo oday ah yaa waxaad dhihi doontaa 50 sano ka hor markaan qaranka u safan jiray markaasaa dhahaysaa marka sharafteedu weligaa kaa hari mayso marka ugu dambayso oo taadu kuu timaado aad geeriyooto waxaa la dhihi doonaa maanta waxaan aasaynaa hebel oo ka tirsanaan jiray qarankii Soomaaliya ayaa la marka taariikhaad u dhigtay naftaada iyo dalkaaga iyo dadkaada ayaa u dhigtay marka waxaan rabaa inaad ku faantiin inaad grateful noqotaan inaanan ka noqonin mar waxaan ku hadlayaa codka South Africa marna waxaan ku hadli doonaa baarlamaankii 11aad kulli aan kaligay aan ka joogo aan ku hadli doonaa waxaa qabateen shaqo wanaagsan aniga waxaan aaminsanahay inaad la guuldareysan aan guulisana aaminsanahay waay su-aashaas waxaan u yidhi 1995 ama 96 qofkii South Africa joogay ayaa maanta gara kara ereygaas aan saas maanta leeyahay waay waxaan xasuustaa 1996 fanaanada madax lagu daboolan haysta si tuugadii aan dhuuma jirnay maanta Holland ugu imaanaynaa ciyaartooydeeni oo South Africa ka dhashay soo dhaweynayna that's the honor that is a very honor waxa aad u wanaagsan waaye passport Soomaaliya in looga soo duulo Soomaaliya ciyaar lagu fiirsado South Africa oo la laabtahay darajo wanaagsan waaye wadanka meel fiican u gaaray ciyaartooydu meel fiican ay gaareen waxa ay la tahay wax wanaagsan ayaan maartay soo socda aniga inaan luus gareyna marna ma warko hore inaan soconaa amsanahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa coachkiina aan u mahad celinayaa
I'm very happy with your service. I'm grateful for your service, Mr. Peter. sidoo kale ugu dambeyntii waxaan mahad celinayaa xiriirka kubadda Soomaaliyeed. insha Allah waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa marka dambe oo soo laabano inaan meel wanaagsan ka gaari doono Ilaahay idinkiisa saas idin rajaynayaa. waa mahadsantiin ummadda Soomaaliyeed, waa mahadsantiin South Africa. shaqo wanaagsan aad qabateen, waana matasheen, namaadna ceebeen, madaxayna kor u qaadeen, hore u socda. mahad oo dhan Ilaahay u sugnaatay. waxaan halkaa ugu mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika sida wanaagsan ee walaalnimada ay noogu soo dhaweeyeen. runtii ciyaaro wadamo badan oo u tagnay ama carabta ha noqoto ama Afrika meel saan oo kale lagu soo dhaweeyay ma jirto. jaaliyad sidaan iskugu xiran oo Soomaalinimo raadinaysana ma arkin, laakiin wixii hadda ka dambeeya leh qalbigeena kama go'i karto sababtoo ah sida wanaagsan aan aragnay ayaan igu mahad celinayaa. runtii waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo agaasimihii hore socdaalka Mr. Kofi mudane. waxaan kuu sheegayaa dadka inta fadhiidayana ciyaartooyda ah baasaboorada ay wataan inta badan adaa u samaysay, waxaan ugu samaysay si wanaagsan ayagoo gurigooda joogo online ugu samaysay. sidoo kale agaasimaha cusubne wadadaaduu raacay, qolooyinka noo dhinaayeenna asaa dhammaystiray. markasta annaga haddaan nahay xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta jaaliyad macnaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadda markas bayna garab taagan yihiin. si wanaagsan shaqada u soconaa, si wanaagsan aan isu fahamsannahay. taasi waxaa keenay abuuritaankii uu abuuray. markii hore waxaa abuuray General Gafow, waxaa ku sii xigay Kofi, haddana agaasimaha cusub macnaha isbedel waaye. qofka markuu baxo qof kale u dardaarmayay, sidaas uu nagu sameeyay. runtii annaga waxaan aad ugu xunnahay shalay dhibaatadii ka dhacday shacabkan koonfur galbeed koonfur sida wanaagsan ay ugu tageen garoonka ay u geli waayeen ciyaarta. taasi aad iyo aad ayaan ugu xumaanay, qalbigeena waa ka go'i weysay. taasna waxa uu sabaxeed waxaa xayiray macnaha xiriir kubadda cagta Africa CAF weli maanu furin garoomada taageera in loo furiyo. marka taas aad aan ugu xunnahay. waxaan rabaa in halkaan nagu soo bisalaamo sida wanaagsan ee walaaltinimada aad nagu soo dhaweyseen. waa mahadsantihiin. waxaan rabaa ugu horeyn inaan u mahad celiyo jaaliyadda waddanka Koonfur Afrika oo sida hore loo sheegay ah dad wadaniyadu ay aad ugu fiican. waxaan raalli ka aasay inuu soo dhaweeyeen. waxaan aad uga xumahay dadkan faraha badan leh oo jecel dadkooda Soomaaliyeed oo xulkooda qaranka inay soo dhaweeyaan ee daawadaan ku talagalay in ay suurtageli weysay number fara badan in ay ciyaarta daawadaan. markii aan ogaanay ciyaarta inuu qabanayo Koonfur Afrika waxaan bilownay xiriir inaan sameeyno ururka kubadda cagta qaaradda Afrika ee CAF si aan u helno taageerayaal. waxaan codsanay ilaa 5,000 number ah oo taageerayaal in ay garoonka yimaadaan. CAF waa noo soo jawaabeen shuruudo fara badan inuu xireen oo waddanka gudihiisa ah. way suurtageli weysa marka in arrintaas ay dhacdo. aadaan uga xunnahay, aadaan ugu raaligelinaynaa. raalli idinka ahaada arrintaas. waxaan rajaynaynaa kulley inaan marar kale insha Allah aan wada kulmi doono haddii Ilaahay yiraahdo. marka idaas uga baxo waxaan rabaa Mr. Kofi wuxuu ka mid yahay xiriirka Soomaalida kubadda cagta odayaashooda. wuxuu ahaa sida la sheegay dhalinyaradan waxay ku dhalatay inta badan banaanka ayagoo dibadda jooga ayaa baasaboorka online lagu sameeyay. wuxuu ahay wuxuu noo ogolaaday in oo arrintaas ay noo fududeeyay. runtii
jidkiisii ayaana ku soconnaa dhalinyarada iyagoo dibadda ku dhashay ayay haddana waxay heleen baasaboorka xaqa u lahaayeen si ay dalkooda ugu cayaaraan marka koofi waa mahadsan yahay sidaa arkaysayna kulley xamar ilaa inta wuxuu u yimid inuu xulka qaranka dhiirigeliyo abaalkaasna u haynaa waana mahadsan yahay waxaan rabaa xildhibaanka maadaama uu baarlamaanka 11aad uu ku jiro inuu dawladda soo socota uu gaarsiiyo in xulka qaranka Soomaaliya ay dawladdu aad u taageerto xildhibaanka ka codsanayna waa mahadsan yahay waxaan rabaa waxaan cayaarnaa anaga isla reeb koobka qaaradda Afrika waxaan cayaar u dambeysay Soomaaliya 1986 ayaa u dambeysay in ciyaartaas ay Soomaaliya ciyaarto waxaan la ciyaarnay Uganda 86 lugti koobaad waxaan ku ciyaarnay Kampala 5 Abriil looga badisay lugti labaadna waxaan ku ciyaarnay Stade Muqdisho Abriil ku dhabaad aad aan u faraxsana marka 2022 inaan ciyaarno markii ugu horeysay waxay noo tahay farxad aad u weyn waxaan isleeyahay jidka aan hayno waa jidkii lagu gaari lahay guusha sida koof uu sheegay ciyaar maalin kasta ay jirtaa waxaa loo baahan yahay khaladaad ka dhacay marka in la saxo waxaan rajaynaynaa kulley khaladaadkaas in la saxo doono waxaa kaloo aad ii sheegaynaa sanadka inta ka dhima haddii la yidhaahdo ilaa 4 aan ka qayb gelaynaa tartama ah haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in aan waxyaabihii khaladaad ka dhacay in la sixi doono asxaabta Cabdikariin iyo koof ku jiraan waa kaalmaysan doonaa ayagana dhinaca dhaqaalaha ka kaalmaysan doonaa haddii la yiraahdo waxaan rabaa marka ugu dambeyntii cawada anaga waxaan jaaliyadda Koonfur Afrika waxay soo jeedeen codsi ah in aan home ka dhigano hawahay Koonfur Afrika waxay la tahay marqaati ka nahay dad sida saan ku soo dhaweynaya oo ku dhaha soo dhawow meel looga leexday inaysan jirin laakiin haddana waxaan xukuumta duruufta waxaan rajaynaynaa inaan dib isugu noqono xiriir kubadda cagta Soomaaliya iyo inta ka shaqeysa kubadda cagtaba number yaraan ku joognaa insha Allah dib aan isugu noqon doonaa waxaan rajaynaynaa meel laga jecel yahay adoo u jeedina meel kale ay doonin waxaan rabaa marka inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo mar labaad mar saddexaadba jaaliyadda Koonfur Afrika waxaan ka xunnahay kubadda cagta waxay leedahay waxa loo dheelaa taageere haddii aan heli lahayn 2,000 oo qaylinaysa waxa laga yaabaa inaan intaas ka fiicnaan lahayn marka waxa la yiri gacanta godeeda subagta qofna uma galadin annaga waa jeclayn inaan taageereel helno laakiin duruufta iyo dalka anagu ma lihin ayaa saamix weysay kaafna iyada ma xukunto Koonfur Afrika laakiin waxay noo sheegeen detailski laga rabayna in la buuxiyo aad u dhibad waxaan rajaynaa marka arintaas in raali naga ahaado especially gabdhaha way ka duwan yihiin dadka ragga waa ka tabaryar yihiin inay 400 kilomitir tageen haddana ciyaar daawayeen wax aad looga xumaado waay waxaan aad uga xumahay 19 Maarso gabar aan ku aragnay Addis Ababa waxay wada 2 kintaal oo calana waxay soo tagil weysay inay meesha ciyaarta gashan waa soo tagil weysay marka gabadhaasna haday joogtay haday maqan tahayba waxaan leenahay mar kale la arki heli doontaa lahaw ugu dambeyn waxaan rabaa kubadda cagta hal qof guul ma keento ma aha tennis orodna ma aha Sakariya marka ha ogaado wuxuu kamid yahay 23 ciyaartoy oo kamid ah uu kamid yahay hal qofna wax ma tari karto laakiin niyad wanaaga jaaliyadda waa ku mahad celinaynaa kubadda cagta wada jira loo guuleystaa wada jirana wax lagu qabtaa marka Sakariyana waa mahadsan yahay waa wiil dhalinyar laakiin kubadda cagta dhamaan kooxdiisa ay u lamid yahay kamana duwana waana mahadsantihiin waxaan dhihi lahaa cawada habeen wanaagsan kun iyo kow jeerna raalli aan kana mahadsantihiin